Assalaamu calaykum, waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran channelka. Kuwani waa oraahyada ku soo dhaca maskaxdayda marka aan kaliga ahay, kadibna aan u isticmaalo qalin iyo buug si aan ugu faa'iideeyo qof walba oo inu maalin kulano. Kuwaas ayaan jeclaystay inaan adinkana idinla wadaago. Aan bilowno. Haddii aadan gudahaaga ku beerin ubaxa kalsoonida, waxaa ku dhaawici doona hadalka mid walba oo wax dhaliila ama wax niyad jabiya. Ha ka walwalin haddii uu qof kugu yiraahdo daniista ayaa tahay, waayo ereyga daniista micnihiisu kaliya waa qof danihiisa garanaya. Haddii aad u adkaysato xanuunka bilowga hore, waxaad ku raaxaysan doontaa natiijada marka aad dhammayso. Waxa aad u fiirsataa nimcooyinka Ilaahay ku siiyay, kadibna waxaad u istaagtaa sida aad uga faa'iideysan lahayd. Noloshaada adiga ayaa iska leh, ha sugin in qof kuu yimaado ee uu noloshaada bedelo. Isdhiirigeli, fadhigana ka kac. Waxaadna haysataa waqti aad wax badan ku bedeli karto, ee ha aqbalin inaad noqoto dadka qofka ugu dambeeya. Waxaadna ogaataa wax waliba ee loo sabro loona dhabar adeego waxa ay yimaadaan iyagoo ka qurux badan sidii aad ka filanaysay. Daliil waliba oo lagu sameeyo waa dhiirigelin iyo bilaabida fikir cusub. Waxaan joognaa adduun uu qofku sharaftiisa iyo dadnimadiisaba ku iibsado wax aan micno lahayn. Waxaase sharaf lahaaday qofkii dawgiisa aqoonsada oo dadkas ka duwanaada. Noloshaada waxaa ku jira waxyaabo badan oo qiimo leh. Waxaad se ogaataa inaysan jirin wax naftaada ka qiimo badan. Quruxda iyo deganaanta nolosha waa inaad ku qanacdo wuxuu Ilaahay ku siiyay iyo siduu isagu kuu dooray. Wax walba ee aadan ka daalin raadintooda maalin unbaad hanataa. Inaad qof u dan sheegato marka koowaad waa dan, mar labaadse waa badownimo.